waxaa bilooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada si weyn u qabsaday warar la xiriira kufsi la sheegay in gabadh ardayad ahayd ee dugsi dhiganaysay macalinkeeda uu kufsi u geystay, taasi oo caraweyn ka dhex abuurtay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan macallimiinta iyo waalidiinta. waxaa markhaati doonto ah in dugsiyada qur-aanka ee dalkeena hooyo lagu tarbiyeeyo carruurta, halkaa oo ah meesha ugu horeysa ee waxbaridda ilmaha yar, iyagoo bara qur-aanka, salaada iyo tiirarka aas-aaska u ah diinta islaamka. waxaa dad badan oo aqoon-yahano ah ay qabaan in qorshaha lagu sumcadilayo macallimiinta dugsiyada in uu yahay mid ay ka dambeeyaan hay-ada shisheeye oo lacag ku bixinaya, iyadoo la arkayo muuqaalada dad aan macallimiin ahayn oo dhahaya waxaan kufsanay arday kadib markii baaritaan lagu sameeyey. Cumar Mukhtaar waxa uu ahaa macallin dugsi oo si weyn u faafinayay diinta islaamka sanadihii 1980 ilaa iyo 1931. wuxuu dagaal adag la galay Talyaaniga oo isagu faafinayay diin aan ahayn tan islaamka, walow markii dambe uu Cumar Mukhtaar ku naf waayay dadaalkii uu ugu jiray faafinta diinta islaamka. Cabdisamad bin Basid isna waxa uu dhashay dalka Algeria, waxa uu ahaa macallin dugsi, waxaana dagaal adag uu la galay dowladda Faransiiska kadib markii Faransa ay iyadu ka xumaatay dad badan oo ku islaamay dalka Morocco, ugu dambeynna ku guuleystay, iyadoo weli Faransa uu caqabad ku yahay diinta islaamka. haddaba maanta macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta bandhiga waxay la dhex qaaday mikrofoonka, iyadoo ay si weyn uga dhiidhiyeen arrinta sumcad dilka ku ah ee muddooyinkanba hawada ku jirtay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أولا وإذن سلام يا بعد الحمد لله والبسملة وحان إذنكم حد علينا يا صوب قشة أدنى صوب وقتين ومحل برنامج كان إذنك عاد ودان برنامج في عن إنه يهي وحد ليس قلبي جينا كل حجرتين مع المهن ودان برنامج كسوان ودني وحنا ربنا ويل بمعلمين أنت حافظ أصل جوجنا إن ميل إن كوضة كلنا إن ورباهين تناسكو كانوا maadaama barnaamijka oo macallimiinta xaggooda oo ka soo baxay oo nooga yimaaday xagga oo Facebook iyo meelaha la isticmaalo bulshada ay ku kulanto, anagan waxaan damacsaneynay anagan meesha inaan gelino sida macallimiinba hore uga hadleen oo aragnay muuqaalkooda. marka waxaan dhihi lahaa dadka barnaamijkan oo faafinayaan xumaantaan waa ogtihiin Aisha radiyallahu anha Abubakar gabadhiisa markii oo lagu tuhmay faaxishada, Ilaahay subhanahu wa ta'ala asigoona ka bariyeelayo 12 aayadood suuratu nuur loo soo dejiyay. 12 aayadood ayaa loo soo dejiyay aydan laga bariyeelayo xumaantaas oo ayada inaysan sameeynin. saas daraadeed marka waxaan leeyahay dadka barnaamijkan ay ku guda jiraan ay leeyihiin dugsiyada quraanka gabdhii hatta waxa aqal gal aan suurtagal ahayn oo leeyahay nin 40 jir ah waxa kufsaday gabar 5 jir ah, nin 40 jir oo macallin dugsi ah wuxuu kufsaday gabar 5 jir ah. marka waxaan is leeyahay barnaamijkaas inuu san sax ahayn. haddii sax ay tahay macallinka anaga ma dhahayna macsuum way ma dhahayna, haddii dambigaas uu ku dhacayna waxaan dhihi lahaa ani shareecada xukunkeeda hala saaro, in sax ay tahay saa wax u sheegtan hadduu yahay maxkamadda hala geeyo. intaasaan dhihi lahaa ani Ilaahay subhanahu wa ta'ala shareecadiisa hala marsiyo hadiiba arrinkaas run ay yihiin. Soomaalida meel weyn ayay kaga jirtaa, yani diinta iyo barashadeedii iyo wax dhan diin meel weyn ayay kaga jirtaa sida caalamka laga og yahay. hadda maanta yani waan ka xumahay, ani ahaan ra'yigayga waan ka xumahay in lagu tilmaamo macallimiintii, in lagu tilmaamo kelimad xun, in lagu aadiyo ama in wax loogu sheego oo la dhaho yani macallimiintii waxay yani u leexdeen caruurtoodii iyo ilmahoodii maanta ay wax barayeen ay yani faaxisho kula kaceen in la dhaho. hadalkaasi hadal mulaa'im maahan, hadal yani oo ka fiirsi u baahan waaye. qofkii dhahayna kolley yani uma dhihin inuu wax wanaajiyo ee wax inuu burburiyo ayuu u dhahay. saan dareemayna yani khayrka markuu socdana يعني ما دمايو إلهي أسيق أيا كفالة قاضي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. يعني إلهي يعني نور كيس أسيق أيا كفالة قاضي أسيقاني يعني إلهي أسيق وجردونا كلام كان إلا سيبرت وجردونا معلمين تنا وهي حنبارسيهم وقرآنكي أيدتك بريان إن اسم هايو إن كل قف بن آدم معصوم يعني ماهن قفكي دنبي قال إن دنبي لو قاو oo dulmiga uu galay oo yani laga jaaziyo diinteena ayaa faraysa meel lagu leexdo ma lahan. qof aan dulmi galin yani dadka macallimiinta qaarna
haddii yani ay dhacdo in dulmi yani uu galo hal qof bini aadan ah ama dad qaar ay galaan dadkoo dhanna maxaa waay in loo xumeeyo ma ahan diinta islaamka dadka xambaarsan waa yani dad u taagan yani inay horumariyaan diintoodii una taagan say ilaahay xaggiisa ula kulmi lahaayeen wax wanaagsan marka ani ahaan waxaan leeyahay kolley hadal walba oo la samaynayo ama wax walba oo la dhahay in dib loo hubsado oo baaritaan loo sameeyo insha Allah wixii kolley jirana oo bulshada ka jirana in bulshada laga qabto wixii bulshada yani oo wanaagsan oo jirana in la hormariyo dadkan yani waxa waay dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan say sare u qaadi lahaayeen wacyigooda sare u qaadi lahaayeen ee bulshada qayb ugu qaadan lahaayeen bulsho ahlu diin saa u naqan laheen inay qayb ugu qaataan intaas ayaan diraya insha Allah ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum ba'd qala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن شاء الله تعالى أنت كلمة سو جيدنا إن شاء الله تعالى معلمين تا أنا جو بعض معلمين تدن ميل كسو الجوجان وحياله لو بين أونا معلمين تا أولي شيء جايو oo beenta iyo lagu wado la dagaalanka waa diinta waa dadka macallimiinta waxa way meesha diinta ka soo burqaneysay oo waxa aas-aaska cunuga marka koodi oo af baranayo lagu soo afurlay quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dad quraanka Ilaahay xambaarsan oo kalaam la xambaarsan in la dhaho maxaa la waxyaalo xun lagu sheego oo wax saqjaanim lagu sheego wax aan u dul qaadan karna ma Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma ogolo xartada qofkaas oo dad macallimiinta ku been abuurayaan haduu Ilaahay ka cabsanayo hoog iyo halaag u dambe diinta Ilaahay la dagaalamaya waxa la dagaalan waxa way quraanka Ilaahay kalaamullah kalaamu rabbil alamin kalaamu rabbil izza kalaamullah oo la dagaalamaya كلام رب الجبار ولا دغالما قف كاسيتو marka qofkii macallimka waa aabaha labaad waa cunug sidiisa wuxuu leeyahay laba aabo leeyahay aabihiisa asaga dhalay oo sulbigiisa ka soo go'ay ee aabihii oo maxalahay oo waxbarashada macalinka aabaha waxbarashada waa xadgudub lagama filanaay inuu maxalahay oo ku xadgudbo maxalahay qof oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xarin inuu lagama filanaay cunugiisa inuu waxan ku sameeyo qofkii markaas wax ka sheegay oo waxa iska faafiyay oo meel kaas u geeliyay waa nin oo Ilaahay ka furtay zaalim ah waa dadka zaalimiinta ah waxana Ilaahay ka cabsadaan hadii Ilaahay ka cabsadaan subhanahu wa ta'ala ciqaab arkayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciqaab dadada Ilaahay ku soo dejinaya maxaa yeelay dadka diinta islaamka la dagaalamayo maxaa lahaay waxa waaye quraanka Ilaahay la dagaalamayo dugsiyada waxa inay dumiyaan dadka rabaan dugsiyada marka waa aas-aaska dhan oo diinta waa qof walbaba sheekh ahaado shariif ahaado maxalla wasiir ahaado maxalla madaxweynaha dugsiga soo maray marka qofkii la dagaalamo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala dugsiga qofka dugsiga dilbaab iyo diinta Ilaahay waa dumaysa marka diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdinaayo Ilaahay wuxuu inna nahnu zalnadiru wa inna lahu lahafiduna marka Ilaahay laga cabso dadka zaalimiinta ah oo faafinayo waxyaalaha fasaadka iyo ummadda ku faafinayo oo dadka been abuuranayo oo xun macallimiinta iyo ardada iyo oo dugsiga ka caran oo u galiyay maxalla meediyaha u galiyay Ilaahay ka cabsano wallahu subhanahu wa ta'ala ana meesha ku soo gabagabeynaya kalamadeyda wa sallallahu subhanahu wa ta'ala alam